gabdha caanka ahaa TikTok oo muuqaallo anshaxumo baahin jiray oo dhawaan ay ciidamada booliisku gacanta ku soo dhigeen ayaa halkan waxa faahfaahin looga bixiyay xarigooda iyo macluumaad ku saabsan waxa dawladda Soomaaliya ay ka yeelayso afayeenka booliiska Soomaaliyeed oo halkan oo degmada Daynile gaar ahaan saldhigga degmada Daynile shir jaraa'id ku qabtay waxa uu sheegay in gabdhahaasi ay ku xadgudbeen sharciga isla markaana ay u dhaqmeen si aan wanaagsanayn iyagoo abaabulay colaado iyo kicin dadweyne taasi oo ka dhaxaysay qaar ka mid ah beelaha degan magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waxa uu sheegay in gabdhahaasi garsoorka la horgeyn doono isla markaana cadaaladda ay ka soo muuqan doonaan dambiyada ay dalka ka galeenna loo ciqaabi doono hadalladiisina waxa ka mid ahaa ciidanka booliiska Soomaaliyeed waxay gacanta ku soo dhigeen haween iyo rag tiro badan oo isugu jira raggii miidiyaha iyo warbaahinta aaladaha balaha bulshada ka waday abuurista colaadda iska horkeedisa bulshada walaalaha ay nabadda ku wada nool waxay gaarayaan 20 ruux tiro inta leeg oo ku dhowna waa ku raad joognaa ma aha daahitaan ka soo daahnay waxaan rabnaa si xididada loogu siibo problemka waa in meesha ka soo farcamay la helo taa ciidanku waxay ku qaadatay inay soo gabagabeeyaan cid walba oo kiiskaas lug ku lahayd oo abaabulkiisa ama ka qayb qaadatay maanta waxa gacanta ku haya ciidanka booliiska Soomaaliyeed waxaan halkan ka cadeynaynaa in sida ugu dhaqsiya badan maxkamadaha loo horgeyn doono waajibka ay leedahay cadaaladana ka gudan doona maxkamadaha xaqa u leh sidoo kale afayeenka booliiska ayaa waxa uu warbaahinta u soo bandhigay hub iyo gaadiidka isticmaalayeen kooxo ka tirsan khawaarijta weerar ka geystay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya walow weerarkaasi la fashiliyay waxa uu sheegay in hubkaas gacanta lagu soo dhigay isla markaana iyaga oo dhaawaca ay baxsadeen raggii weerarkaasi geystay ciidamada ammaankuna ay ku daba jiraan dhabarkayaga waxa ka muuqda mootadaas iyo baalootada sabanka aad u jeedaan waa weerarkii habeen dhexe ay soo qaadeen kooxaha nabadiidka ay ku soo qaadeen rugta Warsamayn Dool halka baalooto sabanka ay ka rideen ciidankana isla markii ka jawaabidii ay ka jawaabayeen waxay gacanta ku soo dhigeen raggii iyo hubkay wateen kadib markii baacsiga lagu sameeyay ay ka carareen wixii ay wateen oo agabka u jeedana baalootada sabanka qori aaka iyo mootadaas bajaajka oo ay ku goobta ugu soo duuleen alaabtana ku soo qaateen sidoo kale raggaasu intii ay ciidanka howlgalka ku jireen ay isbaacsanayeen waxay ahaayeen 3 raga oo hubaysan iyo wadihii mootada saddexdooda mid kamid ah dhaawacmay dhaawiciisa way la sii carareen hubkina waa ay daadiyeen waana lagu raad jooga ila muhiimana mar dhow goobaha lagu dabiibayo iyo goobaha ku sugan yihiin xogahoodii iyo dabagalkoodii ciidanka booliiska Soomaaliyeed ayaa gacanta ku haya dhinaca kale afayeenka ciidanka booliiska Soomaaliyeed ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyay gaadiidka kala duwan ee dadweynuhu isticmaalaan gaar ahaan kuwa loo yaqaan mootobajaajta ee ayda iyo biida loo kala saaro in si sharci darro ah loogu shaqeysto taasna aysan ciidamadu mar dambe aqbali doonin digniino ayuuna u diray wadayaasha iyo mulkiilayaasha mootobajaajta in la aqbali doonin magaalada Muqdisho mooto nambarkeedii inta ka guurtay nambar kale buufsatay ama xarafkeeda ka guurtay xaraf kale buufsatay mooto just nambarkeeda iyo BL-ka nambarkeeda ay islahayn sidoo kale baarista ay sameysay qaybta guud waxa la ogaaday in boqolkiiba 2 mooto kamid ah maatooyinka magaalada Muqdisho ka shaqeeya just nambarka iyo nambarka BL-ka oo islahayn taasina ma aqbali doono waxayna qaadan doonaan ciqaabta ku aadan maxamed tarsan warbaahinta qaranka Muqdisho.